السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. soo dhawaada saaxiibayaal. Ma dareenta in waqtigu kugu yar yahay marka loo fiiriyo howlaha ku yaala. Waqti ma u weysaa naftaada, qoyskaaga iyo wax walba oo ku muhiimsan. Haddii ay sidaas tahay, waxaan kugu bishaaraynayaa inaadan kaliga ahayn. Oo anigaan kula hadlaya ayaa dareemi jira xaaladaas ilaa aan ka helay xalka. Oo runtii aniga ii shaqaysay. Rabaan inaan kugula wadaago muuqaalkan si aad adigana u tijaabisid. Ee ku soo dhawo mawduucana maanta. soo dhawo mar kale. Magacaygu waa Maxamed Cabdullaahi. dad badan ayaa maanta ka cabanaya sidii ay isugu dheelitiri lahaayeen howlaha iyo mas'uuliyadaha u yaala iyo waqtiga ay haystaan iyada oo aan ku jirno xilli ay badan yihiin waxyaabaha naga mashquulin kara danaheenna. laakiin nasiib wanaag waxaa jirta xeelad waxtar leh aadna u fudud dhaqangelinteeda oo maalintaada kaaga dhigi karta mid waxqabad iyo farxad kugu dhammaata. waxaana lagu magacaabaa xeerkan Triple Eight Rule ama xeerka 3-8 oo aan mawduucan ku faahfaahin doono insha Allah. xeerkan waa xeelad waqtiga lagu maareeyo taas oo ah in waqtigaaga 24 saac aad u qaybiso 3 qayb oo isla eg taasoo noqonaysa 3-8. 8 saac oo shaqo ama waxbarasho ah, 8 saac oo hurdo iyo nasiino ah, iyo 8 saacadood oo naftaada aad siinayso. qaybtan saddexaad waa ay ballaaran tahay waxaana hoos imanaya qaybo kale. muuqaalka ayaana ku sharxi doonaa insha Allah. ujeedka xeerkan waa in waqtigaaga oo runtii ah waxa ugu qaalisan ee aad haysato aad si caqliyeysan u qoondayso adiga oo wax soo saarkaaga sare u qaadaya meeshana ka saaraya waqtiga adiga oo aan ogeyn maalayacniga kaaga baxa. waxaa xusid mudan in xeerkan uu yahay mid flexible ah oo uu qofku ku beegi karo dooqiisa. tusaale ahaan, dadka qaar ayaa laga yaabaa in ay shaqeeyaan waqti ka badan ama ka yar 8 saacadood. sidaa darteed, xeerkan wuxuu ku oggolaanayaa in aad ku salayso baahiyahaaga iyo dooqaaga. xeerkan wuxuu ku salaysan yahay 3 mabda' oo kala ah 8 saacadood oo shaqo ama waxbarasho ah. 8 saacadood waxaad u horaysaa mas'uuliyad maalmeedkaaga hadday ahaan lahayd shaqo, waxbarasho iyo wixii la mid ah. in aad saacadahan si adag u shaqayso ama aad wax u barato waxay kuu horseedaysaa inaad ka miri dhaliso yoolalkaaga nolosha adiga oo marka ay kuu dhammaato waqtigan dareemi doono farxad iyo raynrayn ah in aad sidii la rabay u gudato waajib ku saarnaa. inta aad ku jirto saacadahan waxaa lagaa doonayaa inaad iska ilaaliso wax walba oo kaa mashquulin kara howlahaaga, keliyana aad diiradda saarto shaqada kuu taalla. waxaad qaadan kartaa nasiino kadib dhowrkii daqiiqo ama saacadiiba mar si aadan ugu daalin shaqada. kadib 8 saacadood oo shaqo ama waxbarasho ah, jirkaaga iyo maskaxdaadu waxay u baahan yihiin nasiino buuxdo si ay u soo ceshadaan tamartii ay lumiyeen. sidoo kale waxaad u baahan tahay in aad saxdo jadwalkaaga hurdada oo aad habeen walba seexato soona tooso saacad isku mid ah, taas oo la ogaaday in ay qayb weyn ka qaadato hurdada caafimaadka leh. sidoo kale waa inaad iska ilaalisaa isticmaalka shaashadaha ka hor xilliga hurdada, waayo saameyn weyn ayay ku leedahay helidda hurdo tayo leh. saacadahan adiga ayay kugu gaar yihiin waxaana lagu magacaabaa free time ama personal time. waxaad ku qarash garan kartaa naftaada adiga oo wax cusub baran kara si aad isu horumariso. sidoo kale saacadahan waxaa soo hosgalaya cibaadada noocyadeeda kala duwan sida salaadaha, qur'aan akhriska, adkaarta iyo wixii la mid ah. waxaana xusid mudan in qaybo ka mid a saacadahan ay ku dhex jiraan saacadaha shaqada iyo waxbarashada sida cibaadada oo salaadaha iyo adkaarta ay ka mid yihiin. xeerkan ma ahan mid adag islamarkaana u baahan inaad u raacdo sida uu yahay. taa beddelkeeda waa xeer flexible ah oo aan kala jeedo inaad ku salayn karto baahiyahaaga iyo awoodahaaga sidaan wax yar ka hor soo sheegay. waxa ugu muhiimsan islamarkaana ah ujeedka xeerkan ayaa ah inaad hesho nolol isku dheelitiran hadday ahaan lahayd shaqada, waxbarashada, hurdada, cibaadada iyo kobcinta aqoontaada si aad daaqada uga saarto waqtigii maalayacniga kaaga bixi jiray. ugu dambayn, xilligan casriga ee aan ku jirno, maaraynta waqtiga waa xirfadda ugu muhiimsan ee ay tahay inuu qof walba yeesho, maxaa yeelay waxay kaa caawinaysaa inaad ku noolaato nolol deggan oo isku dheelitiran, guulna kuu horseeda. xeer aad u fudud islamarkaana leh waxtar aad u sarreeya waa xeerkan aan kula wadaagay, kaasoo dhahaya 24 saac ee aad haysato 3 meel u qaybi. 8 saacadood waxaad siisaa shaqada ama waxbarashada aad subax walba u kalahdo. 8 saacadood sidoo kale waxaad siisaa hurdada iyo nasiinada. 8 saacadood ee ugu dambaysana naftaada ku horumari, qoyskaaga iyo asxaabtaada muhiimka ku ah waqti kula qaado, caafimaadkaaga uga fikir sida inaad jimicsi samayso oo kale, iyo wixii kale ee aad u aragto inay muhiim ku yihiin. sidaasi waxaad ku helaysaa nolol isku dheelitiran oo aan lahayn walwal iyo waqti ayaa iga khasaaray. saaxiibayaal, mawduuceena maanta intaas ayuu ku egyahay. waxaan rajaynayaa inaad waxun ka faa'iiday insha Allah. inta aan ku kulmi doono mawduuceena xiga. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.